mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada ee gobolka Sanaag oo ay weheliyaan qaar ka mid ah taliyayaasha ciidamada kala duwan ee qaranka gaar ahaan gobolka Sanaag ayaa saaka shir jaraa'id oo ay ku qabteen barxadda hore ee xarunta maamulka gobolka Sanaag waxa ay hambalyo ku saabsan munaasabadda 18 May ee 29 guurada qarannimada Somaliland ugu direen dhammaan shacabka Somaliland gaar ahaan ka gobolka Sanaag iyagoona halkaasi fariimo adag oo ku saabsan xanuunka COVID-19 uga diray bulshada gobolka Sanaag farayna inay ka taxadiraan xanuunkan safarka ah ee joojiyay munaasabadihii iyo dabaaldegyadii oo guud ahaanba Somaliland aan looga dabaaldegin sanadkan xanuunka coronavirus awgii saaka waa 18 May waa maalintii qarannimada Somaliland marka horeysa waxaan leenahay ummadda reer Somaliland dhamaanteed hambalyo sanadkiisana Ilaahay si khayr qabta oo caafimaad iyo nabadba ay weheliso Ilaahay nagu gaarsiiyo dhammaan golayaasha qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyagana salaan gaar ah ayaanu gaarsiinaynaa hambalyo naga guddoonaan waxa inta noo raaca xaaladda lagu jiro waa ogtihiin wadanku adduunyadu wax la qabaa adduunyadiina iminka waxa haysta COVID-19 baa la yiraahdo waxaanu uga digaynaa dadka yaga guud ahaan gaar ahaan reer Sanaag arintu qadarka la iska ilaalin karo laakiin waa isbasriya waynu isbasreynaa maanta waa 18 May oo maalintii aad loo dabaaldegi jiray waa maalintii qarannimada waxa qaranku u joojiyay xanuunkan jira dartii in aanay suuro gelin aad iyo aad ugu mahadsan yahay waxaanu dhammaan hambalyo u diraynaa golayaasha qaranka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka ummadda reer Somaliland meel joogta gaar ahaan ummadda Sanaag gaar ahaan ummadda reer Gaabo waxaanu leenahay ilaahay sanadkiisa haynagu gaarsiiyo nabadgelyo iyo caafimaad alleeyahay hambalyo sida kale waxaan hambalyeeynaa ciidamada qaranka ee isku jira bireyska iyo militariga qaas ahaan ciidanka badda taliyaha ciidanka badda salaam baan u diray kaliya laafta waxaan kaloo salaan u dirayaa madaxweyne ku-xigeenka golayaasha qaranka intaba salaan gaar ah baan u dirayaa tahniyad iyo salaan iyo duco uga dirayaa taliyaha ciidanka booliiska jamhuuriyadda Somaliland taliya xigeenadiisa hogaama ku-xigeenadiisa taliya qaybihiisa gobolada jooga dhammaan ciidanka booliiska ku abtirsada ee jamhuuriyadda Somaliland xanuunka coronavirus awgii Cabdirasaaq Maxamed Jaamac Sugulle Saab TV Ceeri Gaabo